Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay Itoobiya in lagu dhisay dhididka, lafaha iyo dhiigga muwaadiniinta waxaa si sharaf leh loogu wareejin doonaa ayuu yidhi jiilalka soo socda Itoobiya dhaxalgala. Munaasabadda gabagabada ee xuska sanad guurada 65aad ee asaaska taliska howlgallada gaarka ee ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ayaa lagu qabtay garoonka Hawaasa iyadoo ay ka dhaceen munaasabado kala duwan. Munaasabadaasi ra'iisul wasaaruhu ku sheegay in himilada iyo aragtidoodu ay tahay dhismaha hay'ad adag oo sii jiri doonta isla markaana la dhaxalsiin doono jiilba jiilka ka dambeeya. Ayaa waxa uu sidoo kale cadeeyay ra'iisul wasaaruhu in la dhisay ciidan halyeeya oo xooggan kuwaasi oo guul ka soo hoyin kara isla markaana sare u qaadi kara jiritaanka iyo calanka qaranka. Waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya ay dhistay ciidan casri ah oo ku shaqeeya tiknoolajiyad horumarsan, diyaarna u ah maskax ahaan iyo jidh ahaanba, awoodna u leh inuu si degdeg ah u soo afjaro dagaal kasta oo soo wajaha. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay ciidamadani in ay leeyihiin hal ujeedadaasina ay tahay mid qaran oo ku salaysan anshax, iyadoo himiladu ay tahay dhismaha hay'ad jiilasha u gudubta oo hubisa nabadgelyada Afrika, isagoo xusay in la sii xoojin doono dadaalada lagu xaqiijinayo nabadgelyada, horumarka iyo barwaaqada gobolka. ሐዋሳ የኢትዮጵያ ሁነኛ ራዕዮች የሚበሰሩበት ቄጠላ በውስጥ የሸሸግነውን በቤት የመከርነውን በዝማሬ የምንገልጥበት ይህ ቦታ በተደጋጋሚ ያለምነውን የተናገርንበት ስናሳካም በጋራ ድል ያበሰርንበት ቦታ ስለሆነ waxa uu ku booriyay ciidamada in waajibaadkoodu uu yahay dhismaha, ilaalinta, xoojinta iyo inay dhaxalsiiyaan jiilalka dambe hanaan iyo ciidan adag. Gabagabada xuska sanad guurada 65aad ee dufcadda 44aad ee tababarka commandoska ayaa si rasmi ah uga qalin jabisay munaasabadaasi iyaga oo soo xidhay koofiyadda cas oo lagu yaqaano commandoska. Ciidamada ayaa sidoo kale soo bandhigay u diyaargarowga dagaalada laga galo hawada ee ku howlgala diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka ee fuliya howlgallada degdega. Isla markaana commandoska ayaa muujiyay xeelado dagaal oo adag kuwaasi oo ay uga hortagayaan cadow walba oo soo food saara.